Islaamku waxa uu gaadhay waddanka Sweden sannadihii 1940-meeyadii, gaar ahaan caasimadda Sweden oo aynu hadda ka sugannahay. Wixii intaas ka dambeeyeyna Islaamku waa uu ku soo badanayay waddankan. Alxamdulillaah, Allah ayaa mahad iska leh. Adigu waxaad diinta Islaamka qaadatay adigoo da'yara, halkan Sweden waad ku nooshahay, innagoo waddankan inuu waddan muslim ahayn. Islaamnimadaada ma muujisataa? Ha, alxamdulillaah, waan muujistaa islaamnimadeeda, waanan ku faanaa. Inkastoo dhibaatooyin iska jiraan, Allah subxaanahu wa tacaala ayaa awood i siiyey iyo iimaanba. Alxamdulillaah, dareenkayga ma qiyaasi karo. Fariintayda aan walaalahay muslimiinta ah meel walbo joogaan aan u gudbinayo waxay tahay: Islaamku ma aha afka oo keliyaata, balse Islaamku waa ku dhaqan wanaagsan oon diinta sideeda ugu dhaqanno. Waxaan rajaynayaa inuu Allah subxaanahu wa tacaala jannada inagu kulmiyo dhammaanteen. Ma jiraan asxaabtaada ama qof kaleba oo aan muslim ahayn oo aad jeclaan lahayd inay diinta Islaamka ku soo biiraan, isla markaana kula arkaan xasilloonida iyo deganaanshaha aad dareemayso? Haa, wallaahi waxaan leeyahay asxaab badan oo qalbi wanaagsan leh. Haddii ay soo islaami lahaayeen, wax weyn ayay noqon lahayd. Waayo qofka aad si gaara u jeclaan lahayd inuu diinta Islaamka ku soo biiro? Wallaahi dhammaan qaraabadayda. Yaa ka mid ah hooyaday, aabbahay, walaalahay dhammaantood. Islaamnimada ma ugu yeedhaa iyaga oo ma kala hadashaa islaamnimada? Haa, waan ugu yeedhay islaamnimada ilaa maalinkii koowaad. Way adag tahay inay maqlaan waxa aan ugu yeedhayo, maadaama ay wax kala aaminsan yihiin. Laakiin rajo ayaan leeyahay. Tani waa fariin ku socota dhammaan dhallinyarada muslimiinta ah ee daawanaysa walaalkeen Cabdulxaq. Fiiriya isaga. Waxa uu diinta Islaamka qaatay isagoo 14 jir ah. Haddana waa 17 jir. Keliya 3 sano ayuu diinta Islaamka haystaa. Fiiriya rajadiisa. Wuxuu jecel yahay in hooyadii, aabbihii iyo dhammaan walaalihii ay diinta Islaamka qaataan. Waxaan Allah subxaanahu wa tacaala uga baryaynaa inuu ducada u aqbalo Cabdullaahi, dhammaan qaraabadiisna diinta Islaamka ku soo biiraan. idinkuna dhammaantiin aad u ducaysaan walaalkeen. المسلم أن تدعو له بإذن الله عز وجل بأن يحقق لها أمنيته وتسلم أمه ويسلم أباه وأخته وبإذن الله أخوه وكل من تريد بإذن الله عز وجل. Mitt meddelande till alla icke-muslimer där ute är: tro inte på vad media säger och tro inte på vad opålitliga människor säger om islam. Gå till förstahandskällan, Koranen, och sök själv information om islam. Varför? Jo, för att det är sanningen. Det är verkligen sanningen. Det finns inget annat.